Tuke iyo dawaco. beri waxaa jiri jiray shimbir oo la dhihi jiray Tuke. Somali Kids TV. shimbirtaasna waxay lahayd saaxiib oo la dhihi jiray dawaco. ayaga waxay ku wada noolaayeen tuulo. meeshaas waxaa ku oolay geed weyn oo geedkaas waxaa ku noolaa Tuke iyo walaalihiis. 10 bay ahaayeen. subax kasto shimbiraha way duuli jireen si ay cunto u raadsadaan. dhammaan shimbirahaasoo dhan intaana ka ahayn Tuke. Tuke wuxuu jeclaa inuu jiifo. markuu soo kacay buu wuxuu arkay in subaxdaas keligiis uu meesha jiifay. walaalihiis kaloo dhan ay ka wada tageen. wuxuu asaga iska go'aansaday inuu dhinaca magaalada ay ka jirto inuu u duulo. markuu Tuke cambaar soo duulayay buu asaga wuxuu ku soo degtay geed. Tuke wuxuu dareemayay daal badan iyo baahi badan. dhinaca midig iyo dhinaca bidixuu fiiriyey oo markaasuu wuxuu arkay islaan duq ah oo guri hortiisa fadhiso cunto karinayso. cuntada aad bay u carfaysay. Tuke wuxuu rabay inuu meesha cuntada ka qaato, laakiinse inta islaanta meesha fadhisay suurtagal taasu maysa ahayn. asaga in yar buu u fakiray. Tuke wuxuu ahaa shimbir aad u aqli badan. wuxuu maqlay in guriga ay islaanta hor fadhisay in carruur ay ku jireen. Tuke guriga gadaashiisa buu u duulay. buu codkiisana wuxuu ka dhigay cod carruureed. iyo islaanta buu u yeeray. ayeeyo miyay imaan kartaayo miyay caawin kartaa? islaantii baa waxay ku jawaabtay, haa, haddaa kuu imaanaya ayeeyo. markii ayada booska ka kacday ee gudaha guriga u gashay buu Tuke soo duulay. buu cuntadii meesha daf ka siistay iyo dib buu wuxuu ugu noqday geedkii uu ka imaaday. Tuke saaxiibkiis dawacadii baa markuu Tuke ku soo noqonayay u jeeday. dawacada naftirkeeda aad bay u baahneed, iyo dawacada xataa naftirkeeda waxay rabtay wax ay cunto. cuntada uu Tuke meesha la soo fadhiistay inay macaanayd meeshay joogtay dawacada ka dareentay. dawacada way qiyaantay Tuke oo waxay ku tiri, intaada cunin cuntada waxaa rabi lahaa su'aal inaan ku weydiiyo, bal iiga jawaab. markaas ka bacdi cuntadaada cun waa ku nabadgelinaya. Tuke saaxiibkiisu soo fiiriyey. dawacadiyaa markaas waxay tiri, ma ii sheegi kartaa cuntadan saantan u macaan meesha aad ka soo heshay? Tuke wuu farxay oo wuxuu yidhi, saaxiibkee naftirkiisa waa inaa u sheegaa meesha cuntadan ah ka soo qaatay. markuu u jawaabay, Tuke cuntadii afka ku sitaa ka dhacday. dawacadii way orado cuntadii bay afka gashatay, iyo sidaas bay cuntadii ku cuntay. Tukena sidaasuu cuntadii uu soo xaday ku waayay.